waxaa la soo warinayaa shirkaas in dooda ugu badan ay dhex martay Rooble iyo Siciidani oo dhinaca iyo Qoorqoor Cumar Finish ee Guudlaawe iyo Laftigaran oo dhinaca waxaana ugu dambeyn shirkii isaga baxay saddexdaas mas'uul ee markaas u dhow fila Soomaaliya waa afarta mas'uul ee u dhow fila Soomaaliya kuwaas oo markaas ku gacan seeray dhowr dalab ay u soo jeediyeen xubnahaas. Rooble wuxuu ku doodayaa in haddii amniga dalka uusan markaas la wareegin doorasho ku qaban karin Soomaaliya, Siciidani wuxuu ku doodayaa in haddii amniga dalka aan Rooble lagu wareejin uusan doorasho qaban karin sida xilligan markaas doodu shirka fashilisay ay ku soo dhamaatay. haddaba damacadan iyo madoob ayaa la sheegay inuu yahay mid ku saabsan arrimo siyaasadeed iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan doorashada waxayna doonayaan labadaasi xubnood oo Rooble markaas garabka siinaya in amniga Muqdisho Baydhabo Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle Rooble uu la wareego intaasna uu maamulo isagu taasoo ka dhigan mid uusan maamuli karin Garowe iyo Kismaayo sida la aaminsan yahay. qorshahan shirka burburiye ayaa la soo warinaya inuu ahaa qorshe abaabulan oo xubnahan markaas ay doonayeen dhinaca kale afarta maamul goboleed ee aynu soo xusnay marka lagu daro gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay isaga baxeen ugu dambeyn shirka iyagoo ku gacan seeray fariimaha u soo direen waxaanay u sheegeen xubnahan markaas dooda watay in golaha wada tashiga qaran loo dhisay doorasho oo kaliya balse aan loo dhisan wax doorasho ka baxsan sida in markaasi jadwalayaan doorashada waqtiyayaan qarashka doorashada raadiyaan saxitaanka doorashada sameeyaan iyo sidoo kale inay jihayaan doorashada taasoo ka dhigan mid markaasi ay hormuud u yihiin. waxay sidoo kale soo jeediyeen Laftigaran Qoorqoor Cali Guudlaawe Cumar Finish in laba mas'uul oo isdagaalsan aysan xil isku wareejin karin balse haddii taasi ay suuragal tahay xitaa madaxweynaha dalka uusan yeeri karin. sidoo kale waxay soo jeediyeen talo ah in madaxweyne Farmaajo shirka laga soo qayb geliyo maadaama uu yahay ninka la doonayo in xilka uu wareejiyo sida daraadina asiga doodiisa la dhageysto. intaasoo qodoba way ka soo horjeesteen xubnahan caada qaatayaasha ah ee dalka iyo dadka dhibaataynaya kuwaasoo iyagu doonaya in markaasi ay dagaal toos ka bilaabaan ee gudaha markaasi shirka uu ka socday. ilwaradii lagu kalsoon yahay waxay suldaanka TV u xaqiijiyeen in shirkan golaha wada tashiga qaran la isugu soo laaban doono balse iminka uu qarka u saarmay inuu burburo. wararku waxay sheegayaan in shirku uu burburay marka horeba waxbana aysan markaasi kala socon xubnaha ee hadallada afka baarkiisa ah warbaahinta u sheegayo ku doodaya in shirku uusan burburin. cabsi xoogan ayay qabaan shacabka ku nool gobolka Banaadir iyo sidoo kale gobolada kale kuwaasoo markaas ka cabsi qaba in shirkan uu burburi karo iyadoo qodobka markaas la xiriira amniga uu yahay qodobka ugu adag ee xilligan laga doodayo iyadoo markaas hogaamiyaashu ay isaga baxeen shirka ugu dambeyn marka la isugu soo laabtay. Laftigaran ayaa la sheegayaa inuu yahay kan ugu markaas miilka adag ee doonaya in uu ka dhabeeyo tallaabadiisa waxaana sidoo kale wararku ay sheegayaan in dooda Laftigaran ay tahay mid cilmiyeysan oo markaas uu ku doonayo in tallaabo haddii markaas xubnahan ay qaadaan isaguna Baydhabo uu ku laaban doono. arrintan amniga isaga oo markaas ku hanjabaya in shirka uu ka baxayo Baydhabo uu ku laabanayo haddii aan la joojin dooda amniga